aragto duwal noolaa oo baaba'ay waxa qudhe soo hadhaya un waa alle subxaanahu wa tacaala ilaahayna qur-aanka markuu qisadii uxud marka alle ka warramayo waxa uu ku tilmaamay in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mithluh وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وأما الماء ندتك وكل بدلين بإله إليه سبحانه وتعالى انت سوى تاريخ دقودهان مركان هوصر دعواني ما دو قدس أما بيت المقدس أما إيليا أما أورشليم أما واحد دون طبر ده مقعيدا بدن مقالدا له sideedaba waddanka shaam la yidhaahdo shaam waa falastiin iyo suuriya iyo lebnaan iyo urdun iyo inahaasi waa meelaha ugu qadiimsan dunida ee bini aadam ku noolaan jiray magaalooyinka ku yaalaana hadday tahay dimashq waxa lagu tilmaamaa 11 kun oo sannadood meelaha inay jirto hadday tahay dimashq hadday tahay xalb hadday tahay ariixa hadday tahay yaafa hadday tahay caka hadday tahay ghaza hadday tahay qudus dhammaantood 5 kun oo sannadood way ka weyn yihiin baan filaya yani waa magaalooyinkii ugu qadiimsanaa ee dunida la dego maadaama ay sidaa tahay waxaynu garan karnaa xawaadis badan iyo dhacdooyin badan inay soo mareen magaalooyinka haddana markaynu qudus ka sii dhex tilmaamno qudus waa magaalo xadaaraad tiro badan iyo firaq diimeed oo kala gedisan oo tiro badan ay soo mareen ka warrankeedu markaa ma fududa qudus magaalada qudus la yidhaahdo qaybteeda qadiimka waxay yidhaahdaan taariikhda hadda la hayo 2000 sano hadda mooyaane 4000 sano ka hor baa la degay bay yidhaah ayaa la dhisay dhismaha hadda meelahaasi ku yaalla isla markaa haddaynu eegno xawaadistii ka dhici jirtay maalan ninka la yidhaahdo Eric Klein waa nin maraykana oo historiana taariikhyahana buugaag badan leh masiixiyaan rajaynaya wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo Jerusalem Besieged from ancient Canaan to modern Israel buuggiisaasi waxyaabuhu ku tilmaamaya cajabta leh waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay magaaladan taariikhdeedii badnayd haddaynu eegno 2 jeer waa la dumiyey 23 jeerna xisaar waa la go'doomiyey 52 jeerna waa la weeraray 44 jeerna waa la qabsaday yani qudusta caynkaasi markaa haddaynu isdhaa taariikhdeeda ka warran waa taariikh aad u ballaadhan oo aan muxaadaro iyo 1 iyo 2 iyo 3 toona lagu keeni karin laakiin waxaan isku dayayaa maa qabla alislaam inaan ka tago wixii islaamnimada ka horreeyey inaanan waxba ka tilmaamin inaan soo koobo alxadaara alislaamiya intii ay jirtay iyo qudus siday u ekay marka la eego qudus iyo makaanada islaamka ku leedahay waxaynu naqaanaa inay tahay ثاني أقدم مسجد في العالم masaajidkii labaad ee ugu daaweyna dunida ku yaala oo quraanka ilaahay waa ka inoogu tilmaamaya in awwala baytin wadi'a linnaas lalladhi bibakka nabiguna xadiiskiisa waa ka ku tilmaamaya 40 sano kadib in bayt al-maqdisna la dhisay wa ulul qiblatayn waa qibladay muslimiintu u jeesanayeen 17 bilood ilaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka fi suurati al-baqara oo aayaad wax nasakha aayaadka ugu tiro badan leh quraanka ku yaala waayo waa mas'ala ku adkayd bay yiraahdaan muslimiintu markay Madiina joogtay oo ay la noolaayeen dad kale iyana waa qibla kamida qibladii ay muslimiintu u jeesan jirtay hore 17 bilood waa mar saddexaad waa thalithul haramayn waa haramkii saddexaad oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo salaada lagu tukado masjidi haadana inay kun tahay ka lagu tukado makana inay 100 kun tahay ta lagu tukado masjid al-aqsa inay 500 oo salaadood u dhiganto waa mar kale waxaan leenahay waa masra rasuulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waa meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa uu
إسراء هي معراج وما شوك داعي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إنه هبين قرى مكة كتغو أو تغو بيت المقدس وأي دليل النقطة مركا معراجك iyadoo Maka iyo Madiina waa 14 maalmood in ku dhaw kala socday laakiin Bayt al-Maqdis iyo Maka gudaheeda Ilaahay uu kaxeeyay habeen gudaheed inta la geeyay in la soo celiyo waa makaanu uruujihi waa meeshii nabiga laga dheelmiyay cirka laga qabadsiiyay waa meeshii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam anbiyada ku tukiyay imaamka ugu noqday waa meeshii nabigu ku tilmaamayo saddex meelood in cibaado loogu safro oo saddexda masaajida وملي دجنان شرين نبي يدا إن بدن قرآن كو كورمايو أدي النبي إبراهيم نبي لوط نبي إسحاق نبي يعقوب نبي يوشع نبي الله داود نبي الله سليمان أنبياء بدن القرآن كي يصندوا أي كورمايان ومشي دجنان شرين أنت أكيد وحين لنا ومشي كواد الجهاد لو واجبيه وحكوا الرأي ادخلوا الأرض المقدسة النبي موسى لويري wixii ka horeeyay ambiyada waxa la fari jiray inay dacwada faafiyaan dadku haday libaan ambiyada u taagwayaan ka baxaba la oran jiray dibeetana waa la halaagi jiray nabi muuse wixii ka horeeyay quraanku ka waramay ee nabi ahaa dadkii umamkii ka soo horjeeday inta leeyayntii muuminiinta ka baxaba intii kale la halaagay waxa la yiraahdaa qisada nabi muuse labada tarafba way ka qayb noqotay qayb qoladii la halaagay hore way ka qayb noqoto fircoon waqtigiisii wax la yiri ka bax magaalada markii ay ka baxeen ilaahay subhanahu wa ta'ala baddu kala jaxay fircoon iyo kooxdiisii waa la halaagay laakiin haddana iyaga dadkii ugu horeeyay jihaad la faraba la yiri oo dabatana wax la yiri udkhulu al-ard al-muqaddasah allati kataba Allah lakum bayt al-maqdis kala wa meeshu furtay markaasi nabi Muuse waa ku iskaga haray يدي هل كانوا أنه فردينا إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون حديث كان النبي قال كينات المامية يوشع ابن نون إنه فرطي يوشع ابن نون نبي قال له رنشري إنه فرطي أنت هذا ينصور دافنون ما أدنى عهد النبي عليه الصلاة والسلام سنة الله بشارة قصة أروري مد هرقل بلغ ورينيا markii uu nabigu waraaqa kala diray Heraclius ninkii loo dhan jiray Romanska oo markaas uu ka taliya Bayt al-Maqdis markii loo keenay waraaqdii nabiga waa kii nimankii ka yimi Abu Sufyaan iyo koox la socotay oo mushrikiin ahaa oo safara interviewga ka qaaday kadibna wuxuu yiri fa in kana ma taqulu haqqan waxa aad sheegaysaa haday dhabtay su'aalu weydiiyay وكوه بين أيام نبي محمد نبي ما يسمعها صدق يتبن سؤالات أما أفر يتبن سؤالات أيوة يديه وبخاري سؤال أرورين أيوة سؤالها كذب مدول بوحو سببته ويدين ينوو شاقة كذب وحو يري وحا آدي شاكتي هدو نبي هي فسيملك موضع قدمي هاتين هل كان ما انت فرديه وقبصن دونا وقد كنت أعلم أنه خارج لما كن أظن أنه منكم وأن أقول النبي إلهي صدر يو وقتيسي وشوغو ما نسفلين إنه إذنك صباح يو فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت اللقاء ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي وحمركات الماما يا ميشو شوغو إنه قبصان دونه وساداشي هرقلس نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ابن ماجه يا أحمد بورين أيان يا مالك عوف بن مالك يا وحود النبي قالوا عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك ودقال الذي وجود بيه النبي وقال متكمدة دقال كي تبوك والرومانسكا دقال الذي لقوا سوق هذا مركز بانو يمبودي سقو تنبوك ير أما قبير وكسر ما يسان هرب كتيرة لما تنوح النبي يقول عليه الصلاة والسلام اعدد 6 بين يدي ساعة لحتربوا يداني قهر قيامة هرتي لح شيء علامات كقيامها كمدا ترسبوا كيل لحظة الشيء وحو النبي قوه الرسيه موتي غيري ديدا إنه النبي محمد غيريون دون عليه الصلاة والسلام وحو كحك سيه نبي ثم فتح بيت المقدس بيقول أنا قوى غيريونيا كدب الله فران دونا بيت المقدس أفر شيء وكاله
oo geeri badan inay dhici doonto oo ay mufassiriin ama muxadisiintu ku tilmaamaan طaacuunkii camwaas amiinu hada ilumma abu cubayde iyo raggii la midka ahaa ku dhinteen markii ay furteen magaalada kadib inuu yahay xooluhu inay badan doonaan fitna inay dhici doonto guri kastoo carbeed geli doonta hudna inay dhici doonto cala kulli xaal xadiidka maxalu shaahidka inuu inaguga soconnaa waxa weeyaan uun fatxu bayt almaqdis in la furan doono bayt almaqdis nebigaasii sheegay calayhi salaatu wasalaam goorma la furtay bayt almaqdis أبي بكر مكو نبي الدبدي عليه الصلاة والسلام وقبطي خلافة إسلامية هاي وحب الأبمي أصحاب الردة سنة كي هرق الله سخو مشغول سنة لبات كيسي وحب الأبي إنه وير القلية لبدي الدولة دود الدنيا دوغوا وينا ها بيرشيا إيه الرومان إسلام دبا إن دقالو قادو عراق يا الشام لبدا أبا مرقو إن دقالو قادو ciidamuu kala diray uu hogaaminayaan saxaabad tiro badan leh Khalid ibn Sa'id Yazid ibn Abi Sufyan Shurahbil ibn Hasana Abu Ubayd ibn al-Jarrah Amr ibn al-As raggaasi ciidamay hogaaminayaan buu kala diray waqtiga waxa dhacay baa la yiraahdaa kadib macraka weyn oo loo yaqaan macrakatu ajnaadin macrakatu ajnaadin waxay ka dhacday magaaladan hadda la yiraahdo Khalil ku taala إسرائيل ميلان هذا هيستا دين عيدة كدعدي ميلو دو رومانسكية مسلمين تاسقالي جماد الأولى تدبية لباتن كيدي صدحي تبنكي هجرية ده أي مسلمين تقول يستين معركة لباد باكو حكتي أو تي يرموك نهر يرموك كدعدي وأقول نكتيدا إيانا مسلمين تقول يستين هزايم تاسي مركي يكون دعدي كدب oo halka ay muslimiintu marayaan ayuu Umar qabsaday Abi Bakar dhintay Umar baa dawladda islaamiga ahayd qabtay Umar wuxuu bedelay maamulkii askarta Abu Ubayd ibn al-Jarrah buu isugu dhiibay ciidamadii Shaam oo dhan Yarmuk laga soo bilaabana Khalid ibn Walid baa haystay Khalid buu ka casilay Khalidna waxa laga dhigay askar kamida askarta muslimiinta kamida waqtiga waxay muslimiintu joogaan Falastiin inteeda badan gacantay ku hayaan marka laga reebo baa la yiraahdaa magaalo yar oo Qaysariya la yiraahdo oo xeebta ku taala oo iyada Romanska madad badan ka heli jirtay Gaza meeshan hadda la isku dilayo Amr ibn Asba marka furtay inta kadib muslimiintu waxay bilaabeen Abu Ubayda markii ciidanka loo wada dhiibay أبو عبيدة مركو دمشق فرتي أي عيدمدي سكسر دقاقين وحل يمي بيت المقدس وحل قالي قعدوا من مدو حسار مركي أي كوتشرين أي وحي دلبدين هشيسين للقالو نمانكي ميشا كوتشرين هشيسكي بي مسلمين توكا أقبالين وحي كلو هشيسكو دا كمدو أي دلبدين عقدك عدة الناس صحيح أنه فرها كورة جنينا وأنه نقضى عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين والمدينة شوقة أيضا البدن مكي بيت المقدس شوقة أنه نقضى عدة فرها الكورة جنينا أبا عبيدة وربو صادر عمر سواء رنكي وشيغية عمر صحابه الله تشضي عثمان وكمدي علي وكمدي عثمان رأي وسوشي nimanka gaaleed ma aha inay muslimiinta sida ugu kibraan ee ha aqbalin ha u tagina hala weeraro calina ra'yi buu soo jeediyay oranaya muslimiintu in badan bay dagaal ku jireen waxa uu dhib yar inaad tagto faraha lagu siiyo halkay dagaalka gali lahaayeen Umar wuxuu qaatay ra'yiga cali dabeetana wuxuu aqbalay inuu baxo waa soo baxay wuxuu soo aaday meeshii la oran jiray Bayt al-Maqdis ciidamadii muslimiinta raggii hogaaminayay baa ka hor yimi Umar oo isaga iyo qulaamkiisii wiil u shaqaynaya ayaa awr midkoodba mar fuulaya Umar wuxuu yidhi marna anaa fuulaya oo adaa kaxaynaya marna adaa fuulaya oo anigaa kaxaynaya marna awrkaynu nasinaynaa buu yidhi saddex qaybood baynu u qaybinaynaa dabeetana waxa ay ku soo baxeen عمر وميل ضوبا أمريا
oo labadii kabood suxulka gashaday oo wiilkiina saaran yahay awrka cumarna hogaaminayo abu cubayd ibn al-jarraax baa wuxuu ku yidhi yaa amiir almu'miniin niman madaxdooda waaweynayeen u tagay naacayn karo waxay la fiicnaan lahayd yacni inaad sidan yeelin low hayruka qaala xadiidkii xaakim warinayay waa maalinta cumar leeyahay waxaan jeclaan lahaa adiga midaan ahayn inuu warkaasi ku hadlo annagu dad baanu nahay islaamnimada ilaahay ku ciseeyey wax kale haddaanu sharaf ka raadinno ilaahay waa na dulaynayaa buu leeyahay yacni maryo la cadcadaysta iyo kaba la xidha iyo waxaasi wax weyn aniga imaaha buu cumar tilmaamaya inaan muslim oo diin haysto ayaa warka rasmiga sidii buu ku socday sidii buu ku tegey bayt almaqdis bayt almaqdis waxaa la kulmay bay dhahaan batriikii ninkii kiniisadda u weynaa taarikhyahanadu wax badan bay qoraan markay masaladaa ka warramayaan ninkaas iyo suu cumar ula kulmay iyo waxay rabeen inay sameeyaan cumar u diiday baabkaa waa iska dhaafaynaa wuxuu yidhi waxaan kugu casuumaya inaad kiniisadda aan ku soo tuso cumar baan raacay kiniisaddii baa la galay kiniisadda isagoo ku jira cumar ayaa wakhtigii salaaddu u soo galay ayna usalli buu ku yidhi waar xaggaan ku tukadaa wadaadkii kiniisadda haystay wuxuu yidhi makaanak halkaaga iskaga tuka buu yidhi cumar wuxuu yidhi haddaan halkan ku tukado berritay muslimku odhan doonaan waa meeshii cumar ku tukado waa lagaa qaadi doonaaye waan ka baxayaa dabaddaan ku tukanayaa cumar wuxuu diiday inuu ninkii yidhi kiniisadda ku tukado waayo wuxuu leeyahay amiirulmu'miniinkaygii baa halkan ku tukaday baa lagu odhan doonaa oo barraa laydinka qaadi doonaaye wuxuu ku tukaday meel bay yidhaahdaan dhagax la tuur in dhagax la tuuro in leegu jirta ayuu ku tukaday halkii hadda masaajid baa ka dhisanoo masjidu cumar baa la yidhaahdaa saddex masjid baa ku yaalla meeshoo saddexdaba masjidu cumar loo bixiyey kaasaa ka mid ahaa markaa cumar markii uu salaaddiisii iyo wixii dhammaystu ninkii wuxuu ku yidhi qiska ahaa wadaadkii meesha haystay warmee masaajidkii ambiyadu dabeetana waxay u tilmaameen meel masbale ah meel kudaafadda lagu daadiyo xashiishka qashinka ay yidhaahdeen halkaasuu ahaa culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan meesha nimanka haystay waa kristan yuhuudna waxay u arkayeen inay ilaahoodii u dileen col bay wakhtigaa la ahaayeen dabeetana meeshanna yuhuud bay qiblo u ahayd yuhuudna way eriyeenoo saareen qibladoodana aan xumayna bay yidhahdeenoo kudaafad bay ka dhigteen marka kudaafad bay ahaan jirtay cumar mee buu yidhi oo halkaas baa la yidhi meeshaa kudaafaddaa weeyaan kudaafaddii buu guray cumar saxaabadiina waa la gurtay meeshii buu nadiifiyey masaajid yar buu ka dhisay masaajidkii baa lagu tukaday masaajidkaas ayuu meeshaa ka dhisay cumar goormaa la furtay ama sannadkee bay ahayd taarikhyahanada muslimiintii taariikho kala gedisan bay tilmaamaan maalan qaar waxay leeyihin waa rabiicul awal baa la furtay magaalada tabarina wuxuu soo naqlinayaa rabiicul aakhir bay ahayd imaamu tabari iyo ibn aljawsi iyo ibnu kaiir waxay ku tirinayaan xawaadistii sannadkii 15aad ee hijiriyada dhacday inay ka mid ahayd furashada magaaladaasi imaamu dahabi wuxuu ku tirinayaa xawaadistii sannadkii 16aad dhacday inay ka mid tahay qowlkaa dahabi qowl la midana wuu soo naqliyey imaamu tabari sida caankee dadku ay sheegaanna waa sida balaadari uu ku sheegay kitaabkiisa oo ah inay sannadkii 17aad ay ahayd mahmaa takun saddexdaa qowlba waa jiraan 15kii bay ahayd 16kii bay ahayd 17kii hijiriyaday ahayd intaba kutubu taariikh waad ugu tegaysaa cahdi buu cumar iyo nimankaasi ay kala qorteen cahdigaasi wuxuu u qoraa baa la yidhi sidatan ilaa hadda way taallaa waraaqdii alcahdi alcumari كنيسة القيامة ويتالله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ورلر كان وحي عمر أمير المؤمنين إيون منك إيلياء أما بيت المقدس دقناي كلا قرتين أمانها وإن نبدقلية سيئي بيري نفتودا إيا مالكودا إيا كنيسادودا
iyo saliibkooda iyo bukaankooda iyo caafimaad qabkooda iyo diintoodu wax kastoo ay tahayba inaan sidooda ugu daayo wuxuu kaloo ammaankaa ka mid ahaa laa tuskan kanaa'ihim walaa tuhdam ammaankani siduu xuquuq u badnaa sistamka meelahan hadda yidhahdaan xuquuqu bini aadamkaa lagu qoraa waraaqdani way taallaa an laa tuskana kanaa'isuhum walaa tuhdam kiniisadahooda inaan lagana degin oo laga qaadin lana duminin walaa yuntaqasu minha walaa min xiyaziha walaa min saliibihim waxa ay leeyihiin nimankaasi inaan laga qaadin buu u qoray xoolahooda inaan laga qaadin buu u qoray diintooda inaan qasab lagaga saaray ama cidna lagu qasbin buu u qoray waxaa ka mid ah wuxuu qoray walaa yudaara axadun minhum qof iyaga ka midoo wuxooda haysta inaan wax dhiba loo geysanin cahdigaa waxaa ka mid ahaa masale ay iyagu ku adkaayeen oo dalbadeen masaladaasi maxay tahay walaa yaskunu biiliyaa'a macahum axadun min alyahuud cumar dalabkay ka dalbadeen uu aqbalay waxaa ka mid ah magaalada baytilmaqdis la yidhaahdo yahuudi kuma arki karna bay yidhaahdeen baytilmaqdis romaniskaa ka saaray oo kristan ahaa dabeetana waxaa ku soo celiyey bershianiska 624kii meelahaasi mise 14kii 10 sannadood wax ku dhadhow bay joogeen kadib baa haddana romanisku dib uga saareen ama heracles uu dib uga saaray cahdigaa waxaa ka mid ahaa uun ay markaa nasaari taagnay nasaaro oo wax kale qaadatay baynu ka warrami doonnaaye inaan meeshaa lala degin oo yuhuudi aanay la degin dhanka kale intaasi waa intii iyaga la siiyey dhanka kale waxaa la yidhaahdeen annaguna waxaanu ogollay inaannu jizye bixinno kow cumar wuxuu kaloo ku shartiyey romanska iyo tuugtana inaa meesha ka saartaan marka romanska wixii ah iyo lusuusta tuugta in magaalada laga saaro ciddii rabta inay magaalada ka guurto in loo oggolaado naf iyo maal iyo xoolaba inuu la bixi karo dadka beeralayda ah ciddii rabta inay iska tagtana waa la ogoliyay ciddii beertooda haysanaysa oo jizye bixinaysana iyana waa la ogoliyay jizyadu waa cashuur madaxeed kuwani xoolahay cashuuraan laakiin muslimiintu dadka aanu dhalanin madaxoodaa la cashuurayay laakiin muslimiinta zakaa laga qaadayay xuquuq bay lahaayeen ah in la ilaaliyo oo ay ammaankooda iyo dowladnimada ku hoos jiraan dowladnimada taxka markaa inay bixiyaan bay ahayd wuxuu cumar markaa yidhi beeralayduna meeshooda way haysan kartaa jizyun baa laga qaadayaa weliba jizyada waxaa laga qaadayaa marka ay beertu u go'do oo qudha sidaas bay muslimiintu ku qabsadeen meesha la yidhaahdo baytilmaqdis qarnigii koowaad ee hijriyada 15keedii ama 16keedii ama 17keedii kaa tidhaahdaba masaajid yar buu cumar meesha ka dhisay masaajidka meeshuu ka dhisayey imaamu axmed xadiidka uu warinayo kacbulaxbaar ayuu cumar wuxuu ku yidhi ayna turaa nusalli halkay kuugu muuqataa inaan ku tukanno dabeetana wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay si qibladeennii iyo sakhradii meeshan hadda ay yuhuudda u ahayd ee qibladu wuxuuba ay xaggaa inooga wada xigaan dhabarkeeda aan ka soo tukanna buu yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi daahayta alyahuud weli kacbulaxbaar waa nin yahuudi oo muslima yacni waxaad wixii yuhuuddaad weli wadataa buu leeyay yuhuuddii baad u ekaata cumar wuu diiday dabeetana wuxuu yidhi halkii nebigu ku tukadaan ku tukanayaa horteedu ku tukaday oo markaa waxa weeye qibladii yuhuudduna xagga dambey ka xigtaa xagga kacbaduna xagga horey ka soo xigtaa xaggaas buu salaaddii ku tukaday sida xadiidkaasi imaamu axmed uu warinayo ibna kaiir iyo axmed shaakir iyo ay leeyihiin waa xadiid saxiixa inkastoo qoladan musnadka taxqiiqisay ay daciifinayaan sababtuna waa nin ku jirta baa laysku hayaa ma daciif baa mise maaha ragga badhna daciifiyeen badhna xoojiyeen cumar meesha uu ku tukaday oo masaajidkii ugu koowaad laga dhisay markaa kuwii hore waa dumeen cumar baa bilaabay masaajid yaroo sarab oo cariisha buu ka dhisay mucaawiya xilligiisii yara ballaadhiyey masaajid cariishuu weli ahaa dowla lumawiya markay jirtay wakhti cabdilmalik ibnu marwaan xilligiisii iyo inankiisii alwaliid ibnu cabdilmalik labadaa nin ayaa qubaddan iyo masaajidkan iyo waxaan dambe oo dhan dhisay weliba waxaa la yidhaahdaa cabdilmalik ibnu marwaan masaajidkan dhisistiisa wuxuu bilaabay
markii laga qabsaday xarameynkii kale cabdillaahi ibnu zubayr markii uu qabsaday maxaa la yidhaahdaa xijaas oo dhan iyo ciraaq iyo dhulkaas oo dhan markuu qabsaday khilaafadiisii ayuu wuxuu bilaabay xajka dadka yimaada inuu bayco ka qaado wuxuu ka cabsaday bay yidhaahdeen reer shaam hadday xaj tagaan in iyagana uu bayco ka qaado ay saasi khilaafadiisa ku galaan dabeetana intuu xadiidkii imaamu zuhari ee laa tashaddu rixaal u daliishaday ayuu halkan amaamuday dabeetana masaajidka weyn iyo qubbada tan iyo waxa kan oo dhan isagaa sameeyey isagoo raba bay yidhaahdeen inaan ibnu zubayr la xoojinin buu sidaasi u galay inankiisiina alwaliid ibnu cabdilmalikna waa uga dambeeyey oo isna waa sii xoojiyey waa sida uu qorayo imaam ibnu kathiir iyo sibt ibn aljawzi fi kitaabi mir'aati zamaan labadubana waxay ka soo naqlinayaan yacquubi fi kitaabihi yacquubigaasi waxa uu qorayaa isagu iyo uu leeyay sakhrada isagaa dhisay qubbatu sakhra qubbadan weyn ee dahabka u eg isagaa dhisay buu leeyahay ayaamu fitnati cabdillaahi ibnu zubayr soo duduub labadaa nina isdhalay ayaa dhisay masaajidka iyo intan kale masaajidku ini waa intii masaajidkii rasmiga ahayd inna waa qubbada tan ee sakhradu ay ku taallo iyo saaxada u dhaxaysa intoo dhan oo la isku daro ayaa xaram lagu wada tilmaamaa intoo dhan oo la isku daro bay yidhahdeen xaramu masjid al-aqsa waa 141,000 oo mitir square bay yidhahdaan marka intaasoo dhan la isku daro waagii dambaa laba suur loo samayn doonaa siduu mustafa dabaaq fi kitaabihi alqudus ku tilmaamayo markii ay dowladda umawiyiintu cahdiyadeedii dambe oo ay daashayba ayaa zilzaal ka dhacay dhulgariir baa dhacay markay 130 hijriyadu maraysay dabeetana masaajidka dhanka bari iyo dhanka galbeedba waa dumay dowladdii umawiyiinteena markaa idiraabaad baa iskaga jiray masaajidkii umawiyiintu waxay ka tageen isagoo labadaa dhinacba ka dunsan waxaa bilaabmay alcahdi alcabaasi abu jacfar almansuur ninkii la odhan jiray oo 141 hijriyada markay qabsadeen yacnii kadib imaamka ahaa ayaa yimi dadkii baytilmaqdis deganaa waxay ku yidhaahdeen waxaanu rabnaa masaajidkii waa dunsan yahaye inaad dib u dhisto waan dhisayaa buu yidhi waxbaba kale muu samayne qubbada iyo albaabadeedii iyo wixii dahabkii ku dhijsanaa iyo fidadii ku dhijsanayd buu ka guray dabeetana iyadii buu ku dhisay masaajidkii buu dib u dhisay haddana dhowr iyo 10 sano kadib 158 markay hijradu maraysay ayaa dhulgariir kale ka dhacay qaybo masaajidkii ka mida baa dumay mar labaad waxaa dhisay almahdi ibnu lmansuur inankiisii abu jacfarkan inankiisii mahdi ahaa ayaa dhisay oo xoolo badan isagu ku bixiyey bay yidhaahdeenoo si fiican u dhisay taariikhdu haddana markay 216 maraysay baa zilzaal saddexaad ka dhacay baytilmaqdis marar badan buu ka dhici doonaa zilzaalkaasi ayaa dhulgariir kale ka dhacay haddana masaajidkii qaybo ka mida baa dumay dib buu u dhisay ma'muun ninkii la odhan jiray 216 baa ma'muun dib u dhisay magaciisana ku qoray awal dee qolada umawiyiinta laakiin taariikhdii muu bedelin bay yidhaahdaan taariikhdii umawiyiintu dhiseen wuu u daayey laakiin isagaa isku qoray magaciisii buu ku qortay dowla alcabaasiya xilligii dambe iyana way daciiftay taariikhdoo dhan waan dul marayaa uun markii ay daciifeen ayaa waxaa masar la gaar noqday axmed ibnu tawluun ninkii la odhan jiray الطولونيين دولة دودي دبتنا مصر مركو قار ولا نقضي وولاية قوسطي وكا قوسطي خليفة دي أي وقب صدي فلسطين مركو فلسطين قدر صدي إساقا مددي طولونيين تو هستين لا بغلي شني لحدكي إلا لا بغلي أفري سقا شكي إيقا حكومي هدنا اخشيديين تي قبصدي مصر قبصدي 3,720 ilaa 3,950 iyaguna sidii bay u haysteen bal khashiidiyiintu iyagu waxay qaateenba arrin odhanaysa boqorradoo dhan in lagu aaso baytilmaqdis oo boqorradii masar ka talin jiray meydkooda waxa la geyn jiray baytilmaqdis baa lagu aasi jiray
saddex boqol iyo sagaal iyo kontonkii markay taariikhda hijriga marayso ayaa nimankii faatimiyiinta la odhan jiray galbeedka ka yimaadeen masar bay qabsadeen waa soo dhaafeen shaam bay qabsadeen shaam bay saddex boqol iyo sagaal iyo kontonkii iyana ku darsadeen muddo aad u badan ayay nimankaasina ka talinayeen inta badan shiicadu masaaraadka iyo meelaha la tagay waxa aad bay ugu qurxiyaan oo iyagu ashyaada maadiga aad bay u ilaaliyaan sidaa daraaddeed bayt almaqdis iyo sakhrada iyo waxaasoo dhan aad bay u qurxiyeen oo si fiican bay u dhisdhiseen 407 markii haddana hijriyadu maraysay baa zilzaal xoogani ka dhacay الظاهر الفاطمي نكي لورن جيري او دولة العبيدية كترسن اي 413 كي ديبو دساي هدنا 425 كي با مرشناد ميا زلزال كلا كدعي وآد دميي اسغي هدنا الظاهر الفاطمي با مركله هدنا دساي لكن ظاهر الفاطمي مركه دنبه و دسايو حق قلبك يا حق بريغبا و كسو غابيي iyo arwaqadii qaybo ka midaba imika inta dhisani markaa waa ninkaasi markii uu soo gaabiyey intii uu dhisay ayaa hadda ah inta dayrku ku wanaagsan yahay loo yaqaan maxay almasjid al-aqsa dhismaha hadda taagani waa dhismaha al-zahir al-fatimi inta uu dhisay siday mawsuuca al-falastiniya qorayso dawla al-abbasiyya oo markan dambe ay xoog badatay salaajiqadii ayaa qoladan riixiday oo shaam dib uga qabsatay dabeetana khudbadiiba khaliifka loo soo celiyey haddana dhexdooda iska dildileen nimankii salaajiqada ahaa faatimiyiintii baa ku soo noqday 489 bay dib u qabsadeen nin la yidhaahdo iftikhaaru dawla ayaa markaa maamulo looga dhigay saddex sannadood markuu iftikhaarkaasi hayay 429 hijriyada ama 1099 miilaadiyada markay maraysay ayay qabsadeen nimanka saliibiyiinta ah ayaa masiixiyiintu qabsadeen waxaa markaa laga bilaabmaysa taariikhda kristanka iyo bayt almaqdis iyo soo noqoshadoodii dambe shaam dhulka la yiraahdaa waxay noqdeen dawlado yaryar oo muslima oo iyagu iswada haya dawladii salaajiqada ee turkida ahaydna way hoos bay u dhacday magaalo kasta waxa gaar u qabsaday niman ataabik la yiraahdo ataabik waa al-ab al-wasi ayuu afturkiga ku yahay yani waxa weeyaan nin la aniga lay dardaarmay meesha tan oo ninba goob yar buu goostay markay duwalka yaryari istilayaan midbaka kale ayuu xusuuntiisa manjaniiqa madaaficda la dhici jiray oo dumin jiray iyadoo dhanka kalena dagaalkii masiixiyiintu uu ka socdo dagaalkii saliibiyiintu isaga u socdo waa waqtiga ay samaysmeen saddexdii dawladood ee masiixiga ahaa ee shaam laga dhiso mid waxa laga dhisay meesha la yiraahdo antakiya 419 hijriga ama 1098 markay maraysay miilaadigu waa meel imka turkiga ku taala kadibna waxa la dhisay imaaratu ruha iyana turkiga ku taala waxa kaloo la dhisayna mamlakatu urshaliim 429 kan sheegayna waxay qabsadeen bayt al-maqdis halka waxa ka bilaabmay dagaalada caanka ee loo yaqaan xuruubu saliibiya xuruubu saliibiya waa dagaalo kristankii yurub joogay ay muslimiinta ku soo qaadeen waa dagaalo socday 195 sannadood bay socdeen waa dagaalo ay u weynaayeen 8 xamlo ama 8 dagaal ay soo qaadeen nimankaasi kristanka ah iyo kuwa yaryar oo iska socday dagaalkaasi wuxuu bilaabmay baa la yiraahdaa 1095 markii boobkii loo odhan jiray Orban boob la yiraahdo Orban الثاني baa la yiraahdaa ayaa mu'tamar la isugu yimi Faransiiska Clermont magaalo la yiraahdo masiixiyiinta oo dhan oo isugu yimi ayuu wacdi ka jeediyey boobkii ugu weynaa kiniisadda kaatooliga ahi dabeetana wuxuu tirtirsiiyey
maanta inay tahay maalintii yurub intay midowdo ay baytilmaqdis oo ah halkii ilaahoodu iyagu say sheeganayeen uu da ku dhashay ee lagu dilay ee maryamo lagu dilay ee maryamo ku dhimatay ee caynkana kiniisaadkoodii ku yaalleen inay dib u soo xoreeyaan maalintaasi khudbadaasi uu ninkaasi jeediyey yurub oo dhan bay gaadhay yurub ha gaadhee waxaa bilaabmay in wacdigiisii la qaado xoog loo faafiyo oo yurub oo dhan lagu faafiyo wacdiga marka uu bilaabmay 8 dagaal waxay hayeen 8 dagaal oo munadama yani 8 dagaal oo boqorradii yurub hogaaminayaan oo wadaadadoodii la socdaan oo ciidamo tababaranayeen laakiin waxa ka horeeyay xamaasadii markii ay kacdayba waxa jira wadaadda inta iska qiiroodeen shucuubtii beeralayda ha kiciyo oo yidhi ina dhaqaajiya nimanka sugumayno wax wadwada ah waxa soo baxay fallaaxiintii faransiiska iyo jarmalka beeralaydoodii oo wato nin la yidhaahdo walter almuflis walterkii caydha ahaa iyo nin raahibo la yidhaahdo butras الnaasik labadaasaa watay laakiin labada tani maadaama ay dadkan xamaaso geliyeen waxay ka bilaabeen intaynan muslimkaba gaadhin kuwan yuhuudda yurub jooga horta aan sii marino webiga rayn iyo agagaarkiisa wixii yuhuud joogay bay xaaqeen kadibna dad caamo iska ordayay ahaayeen kiniisadii yurubta bari ayay soo dhex mareen oo iyana isku dayeen inay boobaan majariyiinta iyo bulgaariyaniska ayaaba la dagaalamoo kala firfirdhiyey qaybihii ugu badnaa waxay soo gaadheen markaa istanbul oo markaa byzantiyiinta dowladdooda ay ka talinayso boqorkii istanbul haystay alexius la odhan jiray ayaa wuxuu ka shakiyey nimankan iska socday wax walba boobaya waddankiisana inay rabshaan waddaha loo furo buu yidhi horaha u gaadhaan baytilmaqdiskay sheegayaan horuu isu soo dhaafiyey laakiin addawla saljuuqiya markaa waxoogaa iska ladanbaa meel dhaxa la iska helay 3/4 bay gumaadeen waayo may ahayn askar tababaran hub fiicanna may sidanin niman beeralayoo la xamaasadeeyo wadaad hogaaminayo oo yidhi meel baynu soo furanaynaa bay ahaayeen intaa kadib waxaa bilaabmay dagaalkii koowaad alxamla saliibiya lula oo uu hogaaminayo raymond araabic iyo kodofari iyo bohmand iyo tankard waa 4 nin oo intooda badani dooqi ahaayeen bohmond isagoo maxbuus ay muslimiintu markii dambe soo qaban doonaan laakiin waa ninkii antakiya haysan jiray tankrad waa normandiyiintii waa yurubta waqooyi nimankii intay ka soo duuleen faransiiska iyo dhulkan qaybo ka mida qabsaday oo markii dambe boqorka faransiisku iska muslaxay dabeetana gobol dhan bay degaan oo normandiyiin la yidhaahdo gobolkay degaan iyo dadkoodii baa isdhex galay markii dambena siqiliya iyo meelaha kan waa nimankii maamuli jiray waa vikingka nimanka la yidhaahdo marka laga sheekaynayo taariikhda yurubka waqooyi tancred ninkaa la yidhaahdo iyo kodofari waa faransiis gobollada faransiiska qayb ka mida buu xukumayey raymondkanina waa raymondkii afraadka yidhaahdaan raymond de govery ninka la yidhaahdo calaa kulli xaal waa niman dhanna wadaadda ka ahaa dhanna boqorra ka ahaayo meela haystay 4 nin oo hogaaminaya ciidamada ayaa soo galay 489 taariikhdu markay maraysay ayay waxay isu keeneen nimankaasi ciidamada yurub oo ka kooban 19 jinsiyadood 19 jinsiyadood oo yuruba ayay 70,000 oo askari ka keeneen edward gibbon taariikhyahanka ingiriiska edward la yidhaahdo wuxuu leeyahay dadkay wateen dad aad u jaahiliina ayay ahaayeen antakiyay go'doomiyeen dabeetana waa qabsadeen antakiya markay ka qabsadeen saljuuqiyiintii dumar iyo carruur iyo cid walba waa mariyeen waa soo dhaafeen kadibna waxay ka qabsadeen faatimiyiintii meesha la yidhaahdo baytilmaqdis waa intay muslimku joogeen markii koowaad ee ay gasho gacanta masiixiyiinta baytilmaqdis waa 1990kii taariikhyahanka ingiriiska la yidhaahdo stephen runciman taariikhuu qorayo tiro badan leh qayb ka mida waxaa soo naqlinaya gustaf labun kitaabkiisan xadaarat alcarab
wuxuu leeyahay saliibiyiintu markii ay meeshan qabsadeen magaaladay ku faafeen iyo masaajidii wixii ka soo horbaxay ee rag iyo dumar iyo carruur midnaba may kala reebin buu yidhi dilku ilaa habeenkii buu socday buu yidhi may dadku ku nabadgelin buu leeyahay calankii Tancred waa ninkii romandiska ahaa vikingka qabiilkaa ka soo jeeday ninka kani dadkii ku soo yaacay qayb ka mid ah ayuu calankiisa siiyey waxay cabaar baa la istilay ammaan bay dalbadeen in la nabadgeliyo waan idin nabadgelinayaa buu yidhi calankiisii buu u dhiibay xataa kuwaa lama dayn bay yidhaahdeen ee kuwaana waa la xaaqay masaajidka kuwii galay waa la laayay 15 Juulaay 1999 oo ku beegan 23 Shabcaan 429 ayay meeshaasi si fiican u qabsadeen masaajidka ay galeen koox iyaga ka midi wixii ay masaajidka ugu tageen oo dhan bay laayeen Raymond Egilkaas oo Arbon ninka ka yimiya waxa uu yidhi waxaan soo eegayaa meeshii kiniisadii Maryam laakiin meydkii meelu ka marabu waay waxay tilmaamaan magaalada Qudus shawaaricdeedii waxa daadsanaa madaxyadad may odhan madaxyadada waxay iyagu leeyihiin ru'uusil carab wa aydiihim wa arjuluhum baa magaalada daadsanayd bay leeyihiin qof maad meel mari karin bay leeyihiin ilaa iyo meyd baad ka dul dhacaysay waxaasina يعني markay iyagu sifaynayaan mid iyaga ka mid ah Godfrey de Boulogne waxa uu ku tilmaamaya yani markuu ka warramayo runtii si غير caadi ah uga warramaya markaan soo koobo inta aan idin akhriyay mariyeen waa waxay iyagu buugaagtooda ku qoreen hadaynu kuwa muslimiinta tagno ibn al-Athir oo masaladan ka warramaya wuxuu leeyahay ninkii Toch Arab Arsalan loo oran jiray iyo groupkoodii markay ay daciifeen ee Faatimiyiintu meesha ka qabsatay ee ay nimankaasi soo galeen fursad ay muslimiintu isku mashquulsanaayeen bay ka faa'iideysteen buu leeyahay markaas ay ka qabsadeen kadibna Bayt al-Maqdis bay 40 maalmood ama dhowr iyo 40 maalmood go'doomin ku hayeen kadib bay qabsadeen toddobaad bay wixii ka soo horbaxay leeynayeen buu leeyahay oo qof kasto ay arkaan ay laayeen markii dambe ammaan bay dad siiyeen dadkii ammaanka siiyeen bay haddana mariyeen masaajidka gudihiisa qura buu leeyahay waxa lagu dilay in ka badan 70,000 oo qof waa dhacdooyinka ugu caansan ee bini aadam la xaaqo ayaa meeshaasi ka dhacay 90kii sannadood ee maalintaa ka dambeeyay Bayt al-Maqdis waxay ku jirtay gacanta Kiristaanka maalintaas la qabsaday 90 sannadood oo ka dambeeyay bay gacantooda ku jirtay maanta darisku halkaa ku joogo salaamu calaykum wa rahmatullah